kulankan ballaaran oo lagaga arinsanayay isla markaasina lagu gorfeynayay horumarinta caafimaadka degmada Ceelafweyn ayaa waxa uu ka dhacay xarunta maamulka dawladda hoose ee degmada Ceelafweyn waxaana kulankaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka degmada iyo sidoo kale maamulka caafimaadka degmada Ceelafweyn oo ay ka mid ahaayeen maayarka degmada Ceelafweyn ku-xigeenkiisa xogayaha maamulka xafulinta dawladda hoose ee degmada Ceelafweyn qaar ka mid ah ururada bulshada ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo sidoo kale dadweynaha waxaana kulankaasi si weyn loogu gorfeeyay sidii kor loogu qaadi lahaa isla markaasina wax badan looga bedeli lahaa dhammaanba howlaha caafimaadka iyo sidoo kale baahiyaadka caafimaadka degmada maadaama ay dhawaan wasaaradda caafimaadka Somaliland ay albaabada u furtay baraha caafimaadka degmada Ceelafweyn iyadoona kulankaasi la iskula qaatay qodobo dhowr ah waxaana halkaasi si rasmi ah loo dhagax dhigay xarun cusub oo caafimaad taasi oo wax weyn ka bedeli doonta dhammaanba arrimihii caafimaadka iyadoona xaruntaasi cusub loogu talagalay inay isku xidho dhammaanba degmooyinka iyo tuulooyinka degmada hoos yimaada caafimaadkooda sidoo kalena ay goobtaasi caafimaad ay ka qaataan wixii la xiriira sahayda caafimaadka kala gedisan waana xarun guud oo laga maamuli doono dhammaanba waaxaha caafimaadka ee degmooyinka iyo tuulooyinka degmada hoos yimaada waxaana kadib dhagax dhiga halkaasi ka hadlay maamulaha caafimaadka degmada Ceelafweyn oo si weyn ugu mahadnaqay wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale xukuumadda heegana u ah inay la shaqayso kii dhagax qaadaya iyo kii neef keenaya iyo kii macnaha maxaan ku raday dar ilaahay ku shaqeynaya maalin ay nooga fiican tahay laakiin maanta ayay noqotay maalintayadii maalin bushaaro maalin shifaad oo wadani ah marka runtii waxay ka mid tahay nasiibyada wanaagsan ee dawladdan maanta haysata macnaha madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo marka waxyaabaha ay qabatay waxa macnaha ay maanta ka muuqato macnaha dawladda tan maanta macnaha Axmed Maxamuud Siilaanyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa ilaahayna garabkiisa Allah ha galo degme ahaan waa konton iyo 6 tuulo oo qaarkood degmooyin ay yihiin marka degmada inta leeg malahay wax ambalaas iyo wax emergency marka nasiib wanaag generalkii guud ee degmada Ceelafweyn maanta ayay bilowday qaar ka mid ah dadweynaha gaar ahaan haweenka ayaa iyaguna dhankooda si weyn ugu mahadnaqay dhagax dhiga lagu yagleeli doono xarun cusub oo caafimaad oo ku soo korodha degmada Ceelafweyn hadanahay bulshada Ceelafweyn caafimaadku aad iyo aad buu liitay maantana hadanahay bulshada Ceelafweyn hiliyaho waxaan kala hadhaynaa ma jirto waan ku garab taaganahay waxna waan qabsanaynaa diyaar baan u nahay waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay mas'uuliyiinta degmada Ceelafweyn waxaanu dhagax dhignay isbitaalkii guud ee degmada Ceelafweyn oo runtii degmo ahaan anagoo in badan wasaarad ahaan iyo hay'ado fara badan oo runtii aanu la cabanay waxa maanta noo suurtagelisay oo ilaahay ka dhigay aanu dhagax dhigno aad baan ugu mahadcelinaynaa aad bay ugu mahadsan yihiin inay noo dhisaan maamulka degmada oo ugu weeyay gudoomiyaha degmadu waxaan leenahay waa maalin la dhagax dhigay isbitaalkii guud ee cid inoo soo boobay aynu maanta ay kula waxayn lahay oo aynu kula dhisan lahay ku taageeri lahay baa laynaga rabaa sidaan walba ku talagal ku soo dadaal ku soo shaqay Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid TV qaranka Somaliland Ceelafweyn